رمضان haddii ay timahaada kuu bixi waayeen dhagta hoosteedana kuu dhaafi waayeen misana bidaar ay ku gashay rag ahaaw ama dumar ahaaw way ka qayb qaadanaysaa inay timahaada usoo bixiso si degdeg ah weliba haddii aad isticmaashid si joogto ah 2 bilood oo isbuuciiba 2 mar aad marsatid maanta waxaan idin wada faa'iidada ay leedahay alaabtan aad ujeedid bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay inta ku xiran janalka karin iyo qurxin maanta maxay idin wadaagaysaa waxaan idin wadaagayaa gabadhii ama wiilkii ka cabanaya bidaar ama gabadhii ka cabanaysa inay timaha u bixi waayeen ka daateen ka siibmeen ka jilceen ka go-een u bixi waayeen wax idinka saacideynayo waa caleentan hortiina ka muuqata caleentan timaha looma gaaro 100% waana waxa ugu fiican oo timaha lagu daryeeli karo rag iyo dumar maadaama laga sheeganayo bidaar timo daatay na bixi waaye caleenta hortiina ka muuqata waxaa waaye xulbo caleenteeda waa geedka xulbada waaye marka xulbada geedkiisa sidaan ayuu egyahay asagoo qalalan waa la helaa asoo qoyan waa la helaa sidaas aa ujeedid ayuu egyahay haddii aa geedkan heli kartid adiga iyo madaxaada inay bidaara ay gasho dhahdid ama ay kaa daataan ama ay kaa jilcaan ama ay kaa siibtaan waa isdaynaysaan oo timahaada si dabiiciya ayay usoo baxayaan marka sidee u samaysanayna waxaan ku samaysanaynaa moos 2 xabo ayaan ku samaysanaya wixii aarta ku samaysan kartaa avocado ku darsan kartaa toona ku darsan kartaa kaligeeda u shiidi kartaa mayonnaise ku darsan kartaa sanjabiil ku darsan kartaa malaba ku darsan kartaa wixii markaas haystid oo isticmaalaysa aniga waa xoogaa yara roon waay waxaan isticmaalayo adi ilaa 3 gabar camal rabaa inaan u mariyo oo yar marka caleentan waxaan rabaa inaan soo shiido kadibna waxaan soo qaadanayaa galaaska lagu shiido juuska kadibna waxaan ku soo ridayaa caleentii mooskii kadib waxaan ku darayaa glass halfkiis oo biyo ah waana isku soo shiidayaa bal ilanka ayaa ila arki doonta sidii ku soo baxday alaabtan waxay ka qayb qaadanaysaa dhiiga madaxa inuu si fiican u wareegto dhiigaas markuu wareegto muxuu keenayaa inay timo caafimaad qaba soo baxaan inay waxay kale ka qayb qaadanaysaa dulduleelada madaxa inay furmaan oo wasaqda iyo agoolka iyo saliid la marinaay waxyaalahaas ay xirto kale wuu furayaa markay furto maxaa imaanayo inuu madaxii soo baxo tin caafimaad qabtana ee ka soo baxdo wuxuu kale leeyahay timaha qafiif ka noqday dadka markay timaha ka daadanay ama bidaarta iyo gareys timaha ayaa qafiif ka noqdo qafiifka timaha ayay nafaqo ayay siinaysaa timo waxay ka dhigaysaa dhumuc leh adag oo maasha Allah original ah maxaa kale intay ka saacideynaysaa waxay kale intay ka saacideynaysaa madaxa in si dabiici u bixiso waa waxyaalaha la hubo 100% inay madaxa si degdeg ah timaha ee si degdeg ah u bixi karaan bidaartana ay ka baabi'in karaan hadaba ka faa'iideysta haddii isbuuci 2 mar ama 3 mar amarsatid timahaada waa garanti wallahu waa 60 biri gudahood waxa arkaysaa timihii ku dheeraaday dhabarka dhaafay dhulkana gaaray markii aan soo shiitana sidaas iyo igu soo baxa ma sha Allah qurux jileec ma sha Allah haddana waxaan suubinayaa marka waan ka soo gidinayaa oo weelka ayaan ku soo shubanayaa waan ila arki doontaan biidnillaahi alkariim marka maxaa idin leeyahay fadlan haddii ay markuu horeysa soo booqatid janalka kale qurxin subscribe de kana faa'iideyso waxyaalaha caafimaadka leh ee ka cabanayaan dadka bidaarta isqurxinta dhinac walba leh iscaateynta hadda hamoogaan gabdho badan oo madaxa ka biibay iyo wiilal badan oo bidaar laay markay janalka ku soo xirmeen ee isticmaaleen waxyaalaha ku jiro ma hadna ka soo dhiibay timihiin ay usoo baxeen bidaartina ay ka dhamaatay oo timo tiro badan usoo baxay waxaana soo dhignaa waxyaalaha dabiiciga sida hadda arkaysid ee quruxda badan wax tarna ku leh waxna aan ka dhibeynin qarash badan aan joogin markii aan hadda weelkan ku soo shubtay sidaan aa ujeedid ayuu igu soo baxay madaxaada maxaa suubinaysaa waa marinaysaa waa ku masaaj gareynaysaa 2 saac 3 saacadood ayaa ku haysanaysaa waxaa la gelinaysaa wax yar oo huur bac ayaa gelinaysaa mara yar ayaa ku daboolanaysaa dadka timaha ay ka jilceen yani timaha qafiif ee ka noqdeen oo kaleento waa dadka bidaarta ay ku dhowdahay ama bidaarta ay gasho kaleento iyo dadka madaxa qolofta badan kale oo qolofta ka soo qaadayo dadkaas waxa u wanaagsan inay habeenkii la seexdaan kadibna subaxii ay iska dhaqaan
waqti badan ay u baahan yihiin kuwaas inay madaxa ku haystaan. laakiin haddii aad tahay timaha kaa jabayaan kaa siibmayeen yacni kuu bixi waayeen intaas waxa u baahan tahay 3 saacadood 2 saac 3 saac haddii aad ku haysid way kugu filan tahay. عفوا marka maxaan idin leeyahay alaabtan ku dadaala insha Allah waa arki doontaa natiijadeeda waliba si degdeg ah waa wax dabiici oo la hubo boqolkiiba wax la hubo waana waxyaalaha ugu fiican ee timaha lagu daweeyo. aniga ayaa idin sheegayo geedkan hadda aan idin soo bandhigay ama caleentan oo xulbada hooyadeed ah ama geedkii xulbada ahaa waxa ka heli kartaa meelaha lagu gado cagaarada oo kala dadka oo waxyaalaha isbiinijka broccoliga silariga meelaha waxyaalahaas lagu gado ayaa lagu gadaa. picturekeeda qaado ka fiiri screenshot ka qaado tusi ku waxyaalaha gadaan oo kale hadii haynin xitaa way ku keenaan way ku balaminayaan maal hebel oo kale ku keenina kuleeyeen. laakiin aniga badanaa mar walba waxaan aadaa suuqa weyn ee qudaarta meelahaasan ka soo iibsadaa waxyaalaha geedaha mar walba ay arkaysiin ay dhehaysiin ma naqaano ma heli karno suuqa qudaarta aniga aan isticmaalaa oo aan aadaa marka meeshan ka soo iibsadaa. marka hadii uu madaxaada gabar yahay wiil yahay haddii aad ka sheeganaysid bidaar haddaba waa haysataay isticmaal alaabtan. haddii aad ka sheeganaysid inay timaha kaa siibmeen inay kuu bixi waayeen inay kaa gurmeen inay timahaada adag yihiin iyo dadka timaha qaybta hore iyo qaybta dambaba ay ka adag yihiin hadda waa nafaqo iyo jilciso dabiiciya waxaynu ku siinaysaa tima xariira oo qurux badan oo dabiiciya adigoo isticmaalin wax kiimika iyo wax madaxaada birdhib u keeni karo timihi ee kaasii bidi karaan kaa dhamaa karaan yacni qarash fara badan aan kaa galaynin. waxaa idin leeyahay isticmaala oo ku dadaala waxyaalaha dabiiciga ah sida mar walba u ahaatid qof dabiiciya jirkaada timahaada meel walbo markii aad wax kiimika amarstid maanta oo lagu dhaho bari madaxuu soo bixinaya markaa bari heshid isla markii haddana markaa joojisid dib ayuu kaaga noqsanaya. laakiin waxyaalaha dabiiciga sidaas ma ahan ee waxaan idin leeyahay ku dadaala insha Allah. fadlan haddii aad markii ugu horeysa aad soo booqatid waxaa laga codsanaa inaad channelka subscribe dhahdid rukumatidoo beelka on aad ka dhigtid una sii share gareysid asxaabtiina kaliya ha noqonin qof baqayl ah oo kaligiis inuu ka faa'iideysto meeshiisa ku dhaafo ha sameynin uga faa'iiday gabdhaha dhan jilcisada marsadaan yacni madaxooda jilcisada oo yacni dilatay laakiin meel ay uga baxaan aanan haysanin oon garan karin wax madaxooda oo qurxin karo oo timihii ay ka guureen ay ka buubeen wiilasha bidaarta leh gabdhaha madaxa u bixi waaye gabdhaha kulli madaxa ku dhiban oo kaleento waxay ka helayaan gabdhaha kiimikada marsada faceka kuwa burbuuran kuwa caacataysan kulli waxay ka helayaan wax ayaga anfici kara ya adiga sida uga faa'iido ay uga faa'iidayaan sida dad badan uga faa'iideen. fadlan waxaa idin leeyahay qaasatan gabdhaha ka faa'iiday jannaka karan iyo qurxin ee aad ugu xiran ha isku koobinaha faa'iidada kaligiina u sii share gareeya gabdhaha kale si ay ayagan ugu wada faa'iideystaan dhammaantiin maadaama aysan arkin gaarsiiya adinka ha arkaan biidnillahi alkarim share gareeya waxaan idin tagay islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.